dhiirigelin aniga magacaygu waa Cumar aniga 10 sano ayaan shaqeeyaa waxaana ka shaqeeyaa gurigan qasriga weeg oo weynkaad u jeediin gurigan waxaa iska leh ninkan la dhaho Cabdiraxmaan waxaa ku qiyaasaa da'diisa 70 ilaa 75 sano maasha Allah yaabka badan waxay ahayd in jikada oo uu 3 shaqaalo ku wax karinayo tu wax dhaqayso iyo tu wax diyaarinayso marka aniga waxaan la yaabay maasha laga yaabka badan waxaa waaye aniga weligay maan isdagaalin aniga Cabdiraxmaan waayo dad waxaa jiran oo isdagaaloon adiga khilaaf dhex imaado balse aniga isaga khilaaf mana imaan jirin marka ninkan da'diisa ayaa saaid u weynaanaysay Christmas walba wuxuu aadi jiray familigiisa wuu kusoo hawo qaadan jiray markuu soo noqday isagoo xanaaqsan ayaan arki jirnay anagana waan isweydiin jirnay waxaan dhihi jirnay ninkan muu shaqaysto waayo aad ayuu u weynaanayaa saaid ayuu u weynaanayaa muu shaqaysto waan weydiin jirnay balse nooma jawaabi jirin marka anagu markii dambe wuu noo wacay waayo Christmas walba markuu kusoo noqdo aniga wuxuu noo keeni jiray hadiyo wuxuu dhahay hadiyahan waxaa ka keenay UK waxaan idinku toogalay idinka anaga waxaan sugaynay inuu hadiyaha ku jiro lacag qofka ugu dambeeyo hadiyada la siidan boxka la siiyana wuxuu aniga kadib wuxuu dhahay hadda waad furi kartiin fiiriya waxa ku dhex jiro diyaar waayaan dhahnay kadib waan bilaabnay inaan furfurno waan yaabnay aad ayaan u naxnay waayo anaga maanan filinayn sidan oo chocolate inuu ku jiro maanan u malaynaynin waxaan sugaynay inuu lacag ku jiro waan weydiinay maxaa waa chocolate ku jiro hadiyadan maxaa waa chocolate markaasuu dhahay chocolatekan idinka ayaa igu toogalay balse ani maanan u sheegin inaan necbahay chocolate waayo sababtoo ah aniga chocolate xasaasiyad ayaan ku qabaa oo waan ku xanuustaa balse maan rabin aniga qalbiga inaan ka jabiyo kadib waan soo baxay aniga wadada ayaan iska imaaday anoo socdo waxaan tagay dhankaas iyo marka gabadhan waxaa la dhahaa Xaabo waxay caawisaa ilmaha yaryar oo agooninta ayay hadiyada u keentaa saas ayay marka aniga waxaan u keenay chocolate-kii waa u tagay Xaabo waxaan ku dhahay hoo chocolate-kan markaas way fiirisay way yaabtay waxayna igu dhahday chocolate-kan aad ayuu u qaali badan yahay sababta ay siinayso ma ii sheegi kartaa anna waxaan ku dhahay adiga maanan ku siinin ciyaalaha ayaan ilmaha agooninta siiye waayo ay dhahday marka aniga 10 sano ugu dambeysay waxaan aruursanayay lacagtii ayaan meel dhiganayay waan baxay waxaan soo suubistay shopping waayo lacagta horaan ayaan aniga u soo aruursaday kadibna waxaan aaday Shaleemo filin hor aan iska soo daabtay kadibna maqaayad qaali aan aaday waan soo cuneeyay kadibna waxaan soo gatay cabitaano gaari ayaan soo saartay waana soo baxay waxaan u soo jeestay dhankaas iyo guriga aan ka shaqaynayay kadib xoogaa oo yar safar ah kadib waan imaaday gurigii waxaana arkay shaqaaladii guriga oo dhulka taalo waxaana isdhahay malaha waxay iska badisay waxayna cabtay cabitaan markaana waxaas dhahay malahaas maashin ayay ku suuxday maadaama ay cabitaanka iska badisay maashin ayay ku hurdootay waxaana dhahay waan fiiriyey inay nuuxsanayso mise inay dhaqaaqayso saan ayaan u riixay saas ayaan ku dhahay balse wax dhaqaaqaya waan ka waayay madaxeeda ayaan taabtay aad ayaan u naxay haddana qoorteeda ayaan taabtay waxaan arkay inay qoorta shaqaynayno wax nuuxsi lahayn markaasaan qayliyey waxaan dhahay yaa guriga jooga yaa waa qofka guriga jooga xaaminaadaan u baahanahay Firdowso way ay dhimatay balse cidna maysan jawaabin waayaaba waan soo baxay qolalka ayaan fiiriyey waxaan ogaaday dadka oo dhan inay wada dhinteen arrinta ayaan u sheegay booliiska kadib markaa arrinta booliiska u sheegay waxay dhaheen askari wuxuu igu dhahay taas waa shaqadeena annaga ayaa noo xil saaran tahay
waxba ha cabsan adiga anaga ayaana wax walba soo ogaan doono. Haye ayaan ku dhahay aniga oo bixir waxaa maqlay askari kale ku dhahayo kii oo dadka suntooda siiye ayaan u malaynaya inuu sun siiye. Markaas ayaan aad u naxay. Askariga ayaa helay warqad oo waxaa soo qoray warqadan duqa Cabdiraxmaan la dhaho wuxuuna dhahay aniga ma rabi inaan dhinto sidaas darteeda waxaan rabaa aniga inaan isdilo inta aanan dhimanin ka hor. Teeda kale aniga maadaamaan aad u weynaaday ma rabi inaan gacanteeda ku dhinto. Marka yacni asxaab iga raali noqdo waxaan ka wadaa inaan dhinto waxaan rabaa inaan gacanteeda isku dilo. Marka waxaan ka xumaaday maadaama aan isdilayo inaan shaqaalayaasha ay ii joogaan waxaan ku daray chocolate-kaan siinayay waxaan ku daray sun. Marka qof kale yaa loo fahmin aniga ayaa dilay anigana waan cunay sidaas ayaan ku dhintay. Marka teeda kale Cumar wuu iga badbaaday maadaama uu isaga cunin. Asxaabay sheekada meeshaas ayayna ku dhamaatay. Haddii aad ilaa horaan noo sii joogtay waa mahadsantahay. Hadda channelkeen ku cusub tahay subscribe noo saar haddaadan ku cusbeen like tana sii waa ii dhiirigelin mahadsanid.